weligaa ma isweydiisay magaca Ponzi waxa uu yahay? xitaa haddii isweydiin, waxa koobaad ee maskaxdaada ku soo dhacaya waa tuugnimo ama lacag la kala wareejisanayo laguna kala dhacayo suuqyada. Laakiin weli ma isweydiisay xagga uu ka yimid mustalaxa Ponzi ama magaca Ponzi? Waxa uu ka yimid magaca Ponzi tuugii reer Talyaani ee lagu magacaabi jiray Charles Ponzi, isagoona hab waali ah u dhacay wax ka badan 10 qof. dalka Mareykanka qarnigii la soo dhaafay 20-meeyadkii ayay ahayd xilliga ay dhacday qisadiisa ninkan. Haddaba waa kuma Charles Ponzi? qisadiisu maxay ahayd? xaggayna ku dambeysay aakhiritaankiisu noloshiisii? daqiiqadaha soo socda waxay kaaga jawaabayaan waxaasoo dhan. marka daawade, intaynaan muuqaalka u guda gelin, fadlan haddaad channelka ku cusub tahay subscribe saar, videogana like saar, comment qurux badanna soo qor, waxay ii tahay dhiirigelin. waad ku mahadsan tahay la joogaaga. siyaasadda uu adeegsan jiray Charles si uu u dhaco dadka taxaayadiisa ah waxay ahayd siyaasad cajiib ah runtii, waana tu ilaa maanta ay adeegsadaan dadka wax maalgashada. laakiin Charles Ponzi waxa uu ahaa muhaajir ka soo hijrooday dalkaasi Talyaaniga, kuna nool gobolka Boston ee dalkaasi Mareykanka, iyadoona gacanta lagu soo dhigay 1920kii, laguna soo eedeynayay in uu 10 qof lacagtoodii dhacay. ilaaha qisadiisa soo gudbiyeyna waxa ay sheegayaan dadka uu dhacay waxa uu ka urursaday lacag dhan $15 milyan waqtigaas, waana lacag u dhigmata $190 milyan waqti xaadirkan. waxaasoo dhanna waxa uu qabtay 8 bilood gudahood oo keliya. haddaba jidka uu adeegsaday maxay ahayd uu ku ururiyay lacagtaas aadka u fara badan? si kooban waxay ahayd waxa uu iibinayay share, waxauna ku iibinayay emailada. hawshiisuna waxay ahayd inuu ka soo iibsado coins wadamo ay raqiis tahay ama ay aad u jaban tahay coinska laga adeegsado, kuna iibinayay gudaha dalka Mareykanka maadaama xilligaas coinsku aad u qaali ahaayeen, isagoona keenay 10 shaqaale kana dhigaya shaqaalayaal rasmi ah, una sheegay dadka markay iibsadaan sheerka 45 cisho ka bacdi waxa ay helayaan 50% faa'iidada ka soo baxda. muddo kadibna waxay gaadhaysaa ayuu u sheegay 100%, iyadoo ku xidhan tahay lacagta aad maal gashanaysid. hadalkiisana waxa uu sii raaciyay waxa ay gaadhaysaa muddada ugu badan ee qaadanaysana waa 60 cisho ilaa 90 cisho. siyaasadda uu adeegsaday Charles Ponzina waxay ahayd mid kor u sii qaaday dadkii maal gashanayay fikirkiisa. 1920kii bishii July waxa ay la sheegaan in Charles Ponzi lacagtiisu ay ku jirtay meesha ofiskiisa lagu shubo qashinka marka ay ka badbadatay darteed, ilaa uu ka soo waajahayay mushkilad taasoo ahayd in la diiday coinskii ay dadku haysteen in loo bedelo cash. waxa uuna la yimid fikrad kale oo ah in dadka cusub ee maal gashanaya lacagtooda uu qaado, fartana uu ka geliyo dadkii hore ee maal gashtay, una baahnaa in ay faa'iido gacanta ku dhigaan. sidaasna waxay ahayd fikrad guulaysatay runtii. waqtigaasna fikradiisaas waxa ay ganacsiga ka dhex xoogaysatay dalka Mareykanka, weliba gobolka Boston, iyadoona albaabada u xidhay shirkado ka jiray deegaankaas. shirkadaha ugu muudayna waxaa ka mid ahaa Hanover Trust, iyadoona albaabada xidhatay markii fikradda Charles Ponzi dadku ay u soo wada dhaqaaqeen xaggiisa. arrinkaasna Charles Ponzi waxa ay ka dhigtay mid kasbada malaayiin dollar toddobaadkiiba, ilaa arrinkiisa laga kashifayay. waxaana kashiftay majallad ka soo baxda Boston, majalladaasoo lagu magacaabi jiray Boston Post, iyadoona ka qortay maqaal ah. maqaalkaasna wuxuu ahaa in Canada ay ka taalo Charles Ponzi maxkamad ama dacwo ku saabsan in uu iibinayay jeegag fake ah. macluumaadkaas markii uu faafay waxaa la ogaaday in khaa'inimada Charles Ponzi uu ka soo bartay Montreal mar uu ka shaqayn jiray bangi, shaqadiisuna ahayd inuu u dhaco dadka sida uu hadda u dhacayo oo kale. kiiskii ayaana xoogaystay, waxaana gacanta isla markiiba lagu soo dhigay Charles Ponzi. caddaymo iyo taxqiiqaad badan kadib, Charles Ponzi waxa lagu xukumay 17 sano oo xabsi ah. macluumaad kale ayaa sheegay in Charles Ponzi uu la beegsaday fikirkiisa iyo khaa'inimadiisa dagaalkii koowaad ee adduunka markii uu socday. xilligaas oo ganacsiga Mareykanku isku dhexdaadu ka dhex jiray, dadka badankoodna u sahlaysay in si dhib yar loo khiyaamo. mar waraysi laga qaaday Charles Ponzi inta uuna dhiman ayaa waxa uu sheegay waqtigaas waxay ahayd waqti aad u fiican oo ayna dhib yar tahay in dadka si dhib yar loo khiyaameeyo. shaqadeyduna ma ahayn wax kale, shaqadaydu waxa ahayd oo keliya inaan qof lacag ka soo qaado qof kalena aan siiyo.
mid ka mid ah qorshayaashii ugu dhagarta badnaa ee Charles Ponzi uu fuliyey waxay ahayd qorshayaal uu ka fuliyey Albania iyo Romania markii ay jirtay xukunkii Shiiciyiinta. Waqtigaas oo dadka waddankaas ku nool ay ka cabanayeen faqri dhinac walba ah, taasoo ka dhigtay inay dadka si dhib yar loo siro, iyadoona loo mala awaalayo khayaalina looga sheekeynayo. xagga dowladuna ay ku dadaalaysay inta uu xukunkiisu socday kuna jiray xabsiga in dadkii lacagaha laga dhacay loogu celiyo si cadaalad ah, waxayna ahayd taariikhdu 1930. dhanka kale waxaa xabsiga ka soo baxay Charles Ponzi si cafin ah, waxayna ahayd markii la soo daayay 1943, isagoona isla markiiba boorsadihiisa u xidhay waddankii uu asal ahaan ka soo jeeday ee Talyaaniga. inta uuna ka sii bixinna Mareykanka waxa uu siiyay waraysi saxaafadda isagoo u sheegay, waxaan raadin jiray weligayba dhibaatooyin, laakiin waxaan hadda la kulmay dhibaatooyinkan raadinayay kuwa ka badan. intaa kadibna waxa uu shaqo u aaday dalkaas Brazil ee Rio de Janeiro, waana intuuna dhiman ka hor. waxaana ku dhintay isla waddankaas Brazil 1949 caasimadda Rio de Janeiro. waxaana hantiya ka tegay waqtigaas $75 oo kaliya. Charles Ponzi waxaa loo nisbeeyaa aabaha ikhtiraacida isdabamarinta lacagaha feyga iyo coinska ee mala awaalka lagu dhagrayo dadka masaakiinta ah, loogana sameynayo lacaga malaayiin ah weliba waqti kooban. ilaa waqti xaadirkana waxaa adeegsada dadka isku sheega inay yihiin maalgashadayaal, iyagoo dadka ku dhagraya hawlo aan jirin una mala awaalaya khayaalina u dhisay. ilaa haddana mustalaxa Ponzi waa mid caan ka ah guud ahaan dunida. runtii Ponzi waxa uu ahaa tuug dhici jiray kumanaan qof kuna mala awaali jiray, isagoo ka faa'iideysanaya xilliyadaas darnaa ee uu socday dagaalada waaweyn ee dunida soo maray. dadka mar walba u nugul in la dhagro ama wax laga xado waa dadka masaakiinta ah. waatay Soomaalidu dhihi jirtay miskiin ayaa dhabar la fula leh ama miska la fula leh, ma ogi. taasayna ahayd waxa uu ka sameeyay Charles Ponzi lacagaha dhan malaayiinta dollar. muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku eeg yahay. fadlan haddaad channelka ku cusub tahay subscribe saar, videogana like saar. intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaa idinkaga tegayaa peace.